mid ka mid ah beelaha deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland oo halkan maanta isugu yimid ayaa waxay rasmi ah u shaaciyeen murashaxooda ku metelaya golaha wakiilada Idris Aadan Raagayeen isla garteen waxgaradkan kala duwan ee halkan maanta ku kulmay inay ka sharaxi doonaan xisbiga mucaaradka ee UCUD waxgaradkan kala duwan oo halkan shir jaraa'id ku qabtay ayaa waxay rasmi ah ugu dhawaaqeen in Idris Aadan Raaga uu yahay murashax isla markaana isla afgarteen inuu ahaado murashaxooda ku metelaya golaha wakiilada waxaan ka shaaciweynaa xildhibaan Idris Aadan Raage oo xildhibaankaas oo u dooranayno xildhibaan UCUD halka waxaan ka shaacinaa bilweynta Aadan Yuunus ka shaacimanaysa inuu maanta loo doortay xildhibaanka beesha Aadan Yuunus halka maanta waxa loo dooranayaa Idris Aadan Raage xildhibaanka golaha wakiilada Jumhuriyadda Soomaaliland halkaan waxaan ka shaacinaynaa in la isku wada raacay horena la isku raacay war la kala qortay arintaasina hore u dhamaatay Idris Aadan oo u sharaxan beesha Aadan Yuunus oo soo sharaxday xisbiga UCUD aan doonayna wakiilada Soomaaliland uga qayb galaya inuu noqdo beesha Aadan Yuunus waxaan u nimiday taasoo ay isku raacsan yihiin beeshu oo aniguna aan ka mid ahay duqeyda Aadan Yuunus waxaan halkan ku cadeynaynaa oon hore mar iyo laba iyo saddex ku cadeynaynaa inuu golaha wakiilada u matalayo beesha Aadan Yuunus xildhibaan Idris Aadan Raage taasoo ay isku raacsan tahay beeshu horeyse iyo dambeysaba loo hayo qoraalkii loogu saxeexay maxaan idhaahdaa xildhibaanka oo lagaga aqbalay beeshiisu kolkii ay soo dhigtay taas ayaan cadeyn u ahay maanta inaan xaq ku adino aan beeshano aan ku barbartaagnaano maxaan idhaahdaa xildhibaanka arrinka loo soo doortay oo golaha wakiilada Idris Aadan Raaga waan qaadanay waan ku aqbalay beesha Aadan way ku aqbashay way ku qaadatay waxaana tagaysaa baarlamaanka qaranka hadii alla yiraahdo Soomaaliland ku soo dhawow reerweynta inaad u shaqayso ku soo dhawow inaad qaranka u shaqayso daacad ugu shaqayso beesha ku soo dhawow beelweynta wata way ku aqbashay adiguna waa inaad saa ugu shaqayso Soomaaliland ha noolaato waxaan isku raacnay in yar iyo in weynba waxaan isku raacnay inaan Idris Aadan Raage inaan xisbiga UCUD ka shaacino oon u dooranay oo Aadan Yuunus isku raacay waxaan isla garanay oon go'aaminay oon ku qanacsanahay annagoo ah beelweynta Aadan Yuunus aad iyo aad u ballaaran aad iyo aad qiimaha badan leh waxaan markaan guniya baar wax isla eegnay iskuna raacnay islana go'aaminay kuna qanacsana xildhibaanka aan soo dooranay Idris Aadan Raage oo ah nin aqoonyahana nin waxgarada nin dhamaystiran tali iyo arrin iyo aqoonba oon ku aaminay taladayadii intaa ayaan isla garanay kuna go'aaminay kuna qanacsanahay haddii aan dhalinyarnahay haddaan odayaalnahay haddaan aqilanahay haddaan haweenka iyo cid kasta ay qusayso maanta halkan waxaan ka shaacinaynaa xildhibaan Idris Aadan Raage oo u sharaxan golaha wakiilada xisbiga UCUD haddaanu nahay anigoo ku hadlaya afkii ganacsatada haddaanu nahay ganacsi haddaanu nahay odayaal haddaanu nahay waxgarad haddaanu nahay siyaasiyiin dhammaan waxaan isku afkarnay beelweynta Aadan Yuunus inaan maanta sidii noo caado ahaan jirtay awalba ee aan ku soo saarnay kaayagii horeba inaan maantana xoogayaga iyo cududeeda aan saarno Idris Aadan Raage oo maanta u sharaxan golaha wakiilada xisbiga UCUD assalaamu musliin maanta waxa halkan isku yimiday dhammaan beelweynta Aadan Yuunus dhafoorkeega lafdhabartay yalmeenta xaafada ulajeedkiisuna uu yahay kulanka ballaaran ee beesha isku timaday in la shaaciyo in Idris Aadan Raage uu yahay xubinta u metelaysa golaha baarlamaanka ama golaha wakiilada ama golaha sharci dejinta nibasadu yaqaana beelweynta Aadan Yuunus cidda ay dooratay u metelaysa taasina waxa gorfayn iyo xeerkii baa dib loogu noqday waxay noqotay in Idris Aadan Raage ay beeshoodu maanta yeelato waxaan ugu hambalyeeynaa shaacinta maanta laga shaacinayo xisbiga UCUD ee golaha wakiilada
idris aadan raage xildhibaan welcome baan kulahay waan garab taagannahay haddaanay dhalinyaro odayaal ganacsato waxaan isku raacnay inaan maanta golaha wakiilada ka shaacino xildhibaan idris aadan raage inuu yahay inankaas intaasi wixii ka dambeeyay waxaa halkaasi ka hadlay idris aadan raage waxaana uu mahad celiyay waxgaradkii kala duwanaa ee isla afgartay inuu isagu ahaado murashax xooga ku matalaya doorashooyinka soo socota ee dhawaan la filayay in dalka ay ka qabsoomaan halkan waxaan mahad ballaaran uga soo jeedinayaa beelweynta aadan yunis oo ii soo xushay inaan noqdo murashaxa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ugu matali doona odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo waxa weeye ganacsatada shir galay oo waxa weeye go'aamiyay inaan u matalo inaan u noqdo murashaxa golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland mahad ballaaran baan idin celinayaa waxaan idin ballan qaadayaa inaan idigu shaqayn doono si daacadnimo ah isku hayntiina xiriirkiina idiga iyo dawladda iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xiriirintiina wax ka qabashada baahiyihiina iyo gobolka u shaqaynta sharciga Soomaaliland ilaalinta sharciga Soomaaliland ilaalinta xuquuqda gobolka awdal iyo beeshan ka soo jeedo si kastaba haatee beeshan ayaa sheegtay in dhawaan ay si rasmi ah ugu qaban doonaan xaflad ballaaran oo ay ku soo bandhigayaan murashaxni maanta ay sida rasmiga isla afgarteen waa Cimraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Ariel TV Boram